rabo waliba inaan munaasabadan uga faa'iideysto waxa jiray mashruuc World Bank u asteeyay dekada ceelaayo haddaad xasuusataan 2020 iyo 2 wasiirkii hore qorsheynta Jamaal Maxamed Xasan wafdi aan anigu kamid ahay ceelaayo aan tagnay mashruucaas la soo dhagax dhigay dawladda federaalka saxeexday ra'iisul wasaaraha saxeexay in la implementate gareeyo oo la fuliyo u taagnaa shalay ma ahe daraad Puntland baa ka wareejisay waxaana loo raray gobolka bari marka cidna ma eedeynayo reer Puntland waa dad goba waa dad nasaba waa dad aan wada dhalanayn laakiin waxa halaysan oo dadka hagardaamaynaya waa siyaasiga meesha fadhiya dadka marka waxa laga rabaa wardantiina u toosa oo waxa weeyaan maakhir baad leedihiin anigu hadda 15 sano aan malaynaya anigu ardayo Uganda wax ka baranaya 2009 baan bilownay maakhir sawradii calamadii qayladii waa naga soo dhamaatay waxa weeyaan maalin isma bedelin hal maalin maamul kale oo xitaa wuxuu doonaba ha noqday laabteeda ma gelin anigu maakhir baan ahay maakhir baan u dhashay Soomaali markaan ka imaado deegaankaas aan ahay deegaankaasi dawladnimo u baahan yahay